waxaa dowladda maanta Singapore ay soo shacab bixisay in hadda kadib haddii qof ka mid ah shacabkeeda uu shaqo waayo in ay siinayso $6,000 6 bilood oo soo socoto. We are ready to introduce a new Skills Future Job Seeker Support Scheme. The scheme will focus on helping lower and middle income workers. If you lose your job, we will provide you with temporary financial support. How much? In total, up to $6,000 over a period of up to 6 months. So we will help you get through the setback and bounce back stronger. But you must do your part too. What should you do? Go for training, career coaching, as well as job matching services. haddii 6 bilood gudihiisa ay shaqo ku waayaan waxaa loo dirayaa xirfad lacag la'aan ah ay ku soo bartaan oo kale si ay shaqo kale uga helaan waxaa la siinayaa tababar waxaa la raadinayaa shaqo hadda dowladda Singapore la soco waa dowlad 5 sano kadib madax banaanideeda qaadatay markay Soomaaliya qaadatay Soomaaliya 1960kii bay qaadatay Singapore 1965 ruuxantii economigeedana heer sare ayuu joogaa dadkeedana waa dadka maanta baasaboorka haysta ugu qiimaha badan oo meel ay rabaan caalamka intay tagaan visa la weydiineen Soomaali intay joogna wallahu a'lam hadaba ka war haddii lagu siinayo ceer maanta Soomaaliya adoo shaqo la'aan kugu dhacday 6 bilood xirfad cusubna lagu bar lahaa commentiga sababta aan sida Singapore oo kale u noqon weynay commentiga inuu ugu soo waramo insha Allah